roobab muglihi kama aysan di'in Soomaaliya afar xilli roobaad oo xiriir ah sida ay shaaciyeen hay-adaha ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo gargaarka bini'aadamnimada. isbeddelka cimilada ayaa masiibooyinkan loo aanaynayaa maadaama ay Soomaaliya safka hore kaga jirto dalalka ay waxyeelada badani ka soo gaartay cimilo doorsoonka dunida, waxaana u sii dheer duruufo kale oo 30 sano ee u dambeeyay soo jiitamayay. marka dib loo milicsado sooyaalka abaaraha Soomaaliya waxaa loo arkaa abaartii ku dhufatay 2022 in ay ahayd tii ugu adkeyd muddo 40 sano ka badan, waxayna saameyn toos ah iyo mid dadbanba ku yeelatay nolosha in ka badan 7 milyan oo qof oo Soomaaliyeed. xaaladaas qallafsan ayaa horseeday macaluul ay dadka qaar u dhinteen gobollada Gedo iyo Bakool. haddaba si kaalmo degdeg ah loo gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ee ay abaartu ragaadisay loogana gaashaanto inay xaaladdu faraha ka sii baxdo, waxay dowladda federaalka Soomaaliya cod dheer ugu qayla dhaamisay dunida. boqortooyada aan walaalaha nahay ee Sacuudiga waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horreeyay ee baaqaasi ka soo falceliyay, waxayna isla xilligaas daahfurtay mashruuca taageerista sugnaanta cuntada ee Soomaaliya. mashruucan oo ay fulinaysay xarunta gargaarka iyo hawlaha bini'aadantinimada ee Boqor Salmaan oo kaashanaysa hay'adda wadaniga ah ee Tadaamun, waxaa laga fuliyay dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug, Puntland iyo gobolka Banaadir. ku dhowaad 1 milyan oo qof ayaa ka faa'iidaystay iyadoo la qaybiyay 8478.63 tan oo raashin ah, sidoo kalena biyadhaan loo sameeyay 288,000 oo qof. waxaa sidoo kale mashruucaasi qayb ka ahaa caawinta qoysaska danyarta ah ee aan haysan afurka bisha barakaysan ee Ramadaanka, iyadoo la siiyey raashin sakaatul fidri ah, waxaana ka faa'iidaystay 59,100 qof. sidoo kale waxay xarunta Boqor Salmaan ciidda carrafo gaarsiisay dadka danyarta ah hilibka udxiyada si ay qayb uga noqdaan farxadda ciidka, waxaana ka faa'iidaystay 36,000 oo qof. sanadkan 2024 waxaan anba qaadi doonnaa mashruuc aan ugu magac darnay Huga ama Sagabaad. ujeedkiisu waa taakulaynta dadka abaaraha iyo biyo-baxooyinku ay soo barakiciyeen, kuwaasoo aan xilligan haysanin wax ay qabowga dhaxanta iyo dhibicda roobka ka jirsadaan. wuxuu qorshuhu yahay in lagu gaaro 140,700 oo qoys, kuwaas oo loo qaybin doono agab isugu jira teendhooyin, marakaneecooyin, dhar iyo maacuun. hay-adda wadaniga ah ee Tadaamun waxay ka shaqaynaysaa ka dhabaynta aragtida xarunta Boqor Salmaan ee hirgelinta mashruuca xalka waara ee Hoyaad, kaasoo ujeedkiisu yahay in deegaamayn rasmi ah loo sameeyo barakacayaasha si ay u helaan adeegyada bulshada ee ay xaqa u leeyihiin sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo barashada xirfadaha shaqada si ay isku filnaansho dhaqaale u gaaraan. garab istaagga walaalnimo ee boqortooyada Sacuudigu ma ahan mid ay dadka Soomaaliyeed ilaawi doonaan, waana astaan muujinaysa sida ay boqortooyadu qayb weyn uga tahay hayaanka dib u soo kabashada Soomaaliya.